أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan galaynaa su'aalo iyo leeliyaal ku saabsan luqadda carabiga fasalka koowaad ee dugsiga sare. waxaan galaynaa tamriinaatun wa asilatu liluqati alcarabiya lisafi alawwal athanawi. waa leeliyaalo oo sugnaatay leeliyaal iyo su'aalo sugnaatay luqadda carabiga lisafi alawwal athanawi klaaska koowaad ee dugsiga sare. alwaxdatu athani cutubkii labaad. waxaan ka soo baxnay cutubkii koowaad ayaan ka soo baxnay. hadda waxaan galaynaa cutubkii labaad. kow carif iladaba adabka tacriifi. adab maxaa la yihahdaa? jawaab aladab adabku luqatan xagga luqadda waxaa lagu yihahdaa min aduba wuu martiqaadaya, aduba wuu martiqaadayaa, ma adubata martiqaadid, wa adban martiqaadid oo masdarkii ah. macnaha waxaa weeye addacwatu ila acaam cunto laiskugu yeero weeye, aw sinaacatihi iyo samayntiisa. cunto laiskugu yeero ayaa la yihahdaa macnihiisa. cunto qof loogu yeero ayaa la yihahdaa adabka. labo caddi tiri arkaanul adabi adabka arkaantiisa tiri ama sugaanta arkaantiisa tiri. jawaab arkaanul adabi adabka arkaantiisu arbacatun afar weeye. wahiya waxa weeyaan wahiya iyaduna waxa weeyaan waatana alcaadifatu weeye dareen, walkhayaalu waxa weeyaan malawaal weeye ayaa kamid arkaantiisa. al afkaaru wal afkaaru ayaa kamid ah afkaar ayaa kamid ah fikro. wal alfaad erayaa kamid ah. watarakiibu iyo ereyadaas waxyaalaha ay kulansadaan laskaga tarkiibiyo ayaa kamid ah oo laisugu keeno laisugu habeeyo. marka afartaas ka kooban yahay adabku caadifa iyo wuxuu ka kooban yahay iyo khayaali iyo alafkaar wal alfaad watarakiib. limaada nudaris aladab adabka maxaan u baranaa? jawaab nudarisu waan baranaa aladab adabka liaqraadin muraadiyaalo shataa kala duwan muraadiyo kala duwan ayaan u baranaa adabka. afar wadix cadday buu ku leeyahay ahmiyata diraasati aladabi adabka barashadiisa sugaanta barashadeeda ahmiyadda leeda caddee. jawaab wuxuu yahay alqaradu waxaan u baranaa qarad ujeeda allugawiya qarad ujeeda xagga afka ah ayaan u baranaa adabka sugaanta. ahmiyaddu leedahay waxaa weeye luqadda ayuu kaa dhisayaa afka oo luqadii qofkii inuu luqadii u dhashay iyo afka u dhashay inuusan ka lumin iyo sugaanta ayay keenaysaa ilaaliso xifdiso. waxaa kaloo kamid ah u baranaa sugaanta alqaradu taariikhiyo ujeeda taariikheed. taariikh markii la rabo in la sheego adabka ayaa lagu sheegaayo adabka ayuu dhex marayaa laga dhexelaa. waxaan kaloo u baranaa adabka sugaanta u baranaa oo kale almutcatu raaxa annafsiya nafsada loo raaxeeyo ayaa loo bartaayo oo marka qofka adabka uu baranayo wuxuu ka helayaa qeyb raaxa ayuu ka helayaa nafsada ah ayuu ka helayaa. waa garta watasliyatuna wuxuu ka helaa waxa la yihahdo sabaansab ama wax la yihahdo oo qofka uu hadduu xoogaa fikradiisu asaga xoogaa isku mashquulo oo xoogaa problem ay qabsato hadduu edabka uu akhriyo waa ka baxayaa wixii markaas uu qofkii murugada haysay oo hadduu ilaahay kuu samogeliya walwalkii wixii hayay wuu ka baxayaa. marka waxaa ku sugan wax la yihahdo tasliya sabaansab oo qofkii uu nafsadiisii murugadii wixii ku jiray uu markaas uu ka baxo. marka edabku uu leeyahay almudca ayaa kamid ah nafsiya raaxay nafsada loo raaxayo wixii muruga ku jirta qofku nafsadiisa uu ku neefsanaya markuu gabayga wax tiriyo ama akhriyo. watasliyatu ayaa ku jira sabaansab nafsada la sabaansabo oo la maaweeliyo maaweelo nafsadii la maaweeliyo baa ku sugan. tasliyada marka maaweeladaas weeye qofkii uu ku maaweelo adabkii wixii muruga haysan way ka baxayaan. halkaas uga baxnay layliga kale layliga waxaan galaynaa nakmulu alfaraqaati attaaliyata bima yunaasibuhaa min alkalimaati bayna alqowsayni. nakmulu waan dhammaystirin alfaraqaat meelaha bannaan attaaliyata soo socda bimaa yunaasibuhaa wixii munaasabo ayaan ku buuxinaynaa oo min alkalimaati erayaa bayna alqowsayn labada qows u dhexeeyo. labada qows waxa u dhexeeya erey ku jira ayaan gelinaynaa booska bannaan weye. aladab aan gelinaynaa booska bannaan. arkaanul adab ayaan gelinaynaa. alqaradu lugawiya ayaan gelinaynaa. alcaatifa intaasoo qows waxa u dhexeeya ereyaan kala gelinayna si u kala leeyihiin. arkaanul adab adabka tiraryaalkiisu waa kana waxa weeyaan waxaa la gelinayaa meeshaas hore ayaa bannaaneyd arkaanul adab ayaa la gelinaya meesha bannaan oo dhaadhaashka ahayd. hiya alkhayaalu waxa weeyaan malawaal walcaatifatu iyo dareen wal afkaaru fikiro iyo wal alfaadu erayo watarakiib iyo waxyaalo isku keeno. laba min aqraadi waxaa kamid ah ujeedooyinka diraasat aladabi adabka loo barto waxaa kamid ah alqaradu lugawiy muraadka xagga afka ah kamid ah. alqaradu muraad ayaa kamid ah allugawiy lugawi ah ayaa kamid ah. waa gartay walqaradu taariikhiy iyo qaradka taariikhi ayaa kamid ah. qaradka waxaa kamid ah ujeedo taariikhi ayaa kamid ah. walmudcatu waxay raaxaa kamid ah watasliyatu sabaansab ayaa kamid ah.
nafsada la sabaansabo oo la maaweeliyaa ka mid ah. saddex al-adabu adabku wa kalaamun weeye baliiqun xeel dheer mu'atharun ama mu'athirun saameeya fi nufuusi nafsada saameeya nafyaalka saameeya. Suugaantu waa hadal xeel dheer waaye oo qofka nafsadiisa ama nafyaalka aad u saameeya. Mu'athirun saameeya fi nufuusi nafyaalka aad u saameeya qofkii wuu bedelayaa markii adabka uu maqlo ama uu akhriyo. waa gartay afar alcaatifa ayaa ka mid ah meelaha banaan waxa la buuxinaya waxaa ka mid ah oo ka maqan alcaatifa boosaska meelaha banaan la buuxinaya la gelinaya. hiya caatifadu ahamu daaficin waa ujeedo muhiima weeye yu'addii u horseedaya ila adabi adabka u horseedaya weeye. wallahu subxaanahu watacaala aclam wa axkam.